dalkan waxaa matasha dowladda soomaaliya ee muqdisho fadhid ayaa sharci ahaan matasha maaha jacayl iyo dookh iyo nacayb midna wax ku salaysan maaha waa arrin sharciyo halkaa tahay waddan aan la aqoonsanayn oo waddan kale sheegto oo ku hoos jira waddan kale iyo dal la aqoonsan yahay heshiis ay wada galaan ma aha wax ictibaara dad baa lagu khiyaamaynayey oo loogu sheekaynayey d b welba waa inaga heshiiska la galay d b wel waxaa oggolaaday xasan sheekha iminka fadhiya ee madaxweynaha ayaa imaaraadka ka oggolaaday muusena waa ogeydana xaala waa daawanayseeno maalintoon abaagil qura inoo yimiye in boqol abaagidha la dhex fadhiisiyo baashii loo xidhayo xaaloo dhan isagii sidii bisad yaroo la qabtay uu saa u dhex fadhiyo uu yaabanaa oo keligii la geeyey meesha waxaan waa cilmi soconaya waa la barakicinaya dagaalkiina uu bilaabmay xasan sheekhna tallaabooyin buu qaaday ilaa xataa hadday xoog isku daydo etoobiya inay ku soo gasho oo xoog ku fuliso ayaa soomaaliya diyaar u tahay dadka isaaqa sheegtaa inay barhkood oramo ahaayeen oo oramada ka soo jeedeen badnahay reer sheekh saxaaq ay sheekh saxaaq ahaayeen oo ka soo jeedaan waa dhiig ahaan baan ka hadlaya dhiig ahaan in dadkan isaaqa sheeganayay aanay sheekh saxaaq ka soo wada jeedin ayaa caddaatay imka ee barhkood oramo ahaa muuse wuxuu ku jiraa xaaladdii aaliyulxusuusiye aabi axmed uu u yeedhay sidanoo kale uu degdega ugu yeedhay ee iminka kaale soo dhoof iminka ee uu dhoofu tegey ee farmaajoo sii fadhiya loo geeyey ee uu ku yidhi aniyo farmaajo wada soconna hargeysa imanayna sii diyaari ee muuse marka erboorka soo degay ay nafti ku soo noqotay eesalaagaloo jawaanadeenu hanoo keeni ninkaa doonimayo laga hayso wanadeenu niga waxaynu ka wada dheregsannahay xaaladda iminka somalilan ay gashay ku jirto waxaan doonaya inan kaga hadlo heshiiska madaxweyne muuse uu la soo saxeexday aabi axmed raadadka uu leeyahay heshiiskaasi ama saamaynaha uu leeyahay ee xag dhaqaale xag siyaasadeed xag bulshaba saamaynta uu keeni kara waa noocmaa waxaan doonayaa marka hore inaan sharciyan dhinaca sharcigaan ka hadlo sharciyan somalilan maa horta dal la aqoonsan yahay ninkii doonaa wixii doonaha isugu sheekeeyo waxaa ina hor yaalla oo ina hor taagan ugu yaraan 7 qaraar oo golaha ammaanka jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ka soo baxay oo lagu akidayo marba marka dambeyse lagu sii akidayo oo ama lagu cusboonaysiinayo midnimada dhul ahaan dalka soomaaliya la yidhaahdaa inay lama taabtaan tahay golahaasi waa golaha ciddaan garanaya la fasira 15 xubnooda ee 5 atoore ay fadhiyaan ee dunidan ka taliya dunidan aynu ku nool nahay ilaahay ka soko golahaasaa ka taliya ku aqoonsadana waa la aqoonsadaa kuwaa waxaaga waxba kama jiraan halkaa waxaan ka bayaaminayaa sharci ahaan dalkan waxaa matasha dowladda soomaaliya ee muqdisho fadhid ayaa sharci ahaan matasha maaha jacayl iyo dookh iyo nacayb midna wax ku salaysan maaha waa arrin sharciyo halkaa taalla shalayta waa ogeydeen dowladda soomaaliya go'aamadii ay ka soo saartay isla shalay gelinkii dambe waxaa adduunka ka bilaabmay dagaal diblomaasiyadeed
dagaalkaas ilaa xalayna wuu socday dagaalkaas mid xilina weydiinaya maha cid allaal cid xilina weydiinaysa ma jirto dagaalkaas wuxuu u dhexeeyaa soomaaliya iyo etoobiya soomaaliyana waxa jira heshiiska waxba kama jiraan etoobiyana waynu arkayno way dabaaldegiisoo ku faraxsanay dagaalka waa lagu kala adkaanaya isaga dhinaca sharciga haddii la yidhaahna soomaaliya ku adkaanaysa waayo adduunku qawaaniin buu leeyahay qawaaniin baa jirta qawaaniintaasaa la raacaa waa lagaga adkaanaya etoobiya waxaa u yimi maalmihii uu aabi axmed lahaa ama samaan baanu ku heli ama xoog baanu ku heli badda safiir uu maraykanka ku soo magacaabay ergeyga bariga dhexe aabi axmed uu wal hadla wuxuu ku yidhi sida bolivia iyo jek oo keliya kuu bannaan inaad bad ku hesho dariiq allayaalo dariiq kaloo kuu furayn ma jiro bolivia iyo jek haddaba waa laba dal oo madax bannaan oo la aqoonsayey oo heshiiskay galaanna uu dhaqangel yahay laakiin waddan aan la aqoonsanayn oo waddan kale sheegto oo ku hoos jiro waddan kale iyo dal la aqoonsan yahay heshiis ay wada galaan ma aha wax ictibaara dad baa lagu khiyaamaynayey oo loogu sheekaynayey d b welba waa inaga heshiiska la galay d b weld waxaa oggolaaday xasan sheekha iminka fadhiya ee madaxweynaha ayaa imaaraadka ku oggolaaday sidaasaynu ayuu ku timi oo somalilan ku saxeexday oo detailiska ay saxeexday heshiiskanna iminka haddaanu aabi axmed sharciga u yaqaana haddaanu farmaajo waraaq ka haysan qoraal ka haysan berigii uu meesha joogay baa u horreysay oy soo baxday sheekada badda etoobiya iyo soomaaliya aabi axmed odhan jira 4 dekedoodoo soomaaliyaynu isticmaalaynaa waa kuwii isku shushban jiray aabi axmed iyo farmaajo waynu ogeyn haddaanu la soo bixin qoraal caynkaas oo uu ku doodo uu leeyahay waxaa ii oggolaatay aniga soomaaliya ayaa ii oggolaatay daciif bay noqonaysaa doodda etoobiya meel ay ka shaqaynaysaana ma jirto qodobka ixtiraafka ama aqoonsiga ee laga hadlayo mandiqadeennan urur goboleedka ku yaalla waxaa la yidhahdaa igad aqoonsigeenu wuxuu ka bilaabmaa urur goboleedka igad haddii urur goboleedkaa igad aanu ka bilaabmin oo majooritigoodu aanay isku raacin in la aqoonsado somalilan wax aqoonsiya oo jiraa maba jirto haba yaratay dad kale aan been loogu sheekayno urur goboleedka igadna waa waddamadaynu garanayno waa jabuuti waa etoobiya waa kenya waa uganda waa sudan waa ansoor ictiraafkeenu intu ku xidhaya waa intaa marka laga yimaado macnaheedu waxa weye intaasaa waxaa la yidhaahdo qasabka soomaaliya ku marin karta oo isla oggolaata oo soomaaliya qasabka ka dhaadhicin karta iyo soomaaliya iyo somalilan oo heshiiya oo isaqoonsada oo soomaaliya ay saxeexdo baarlamaankeedu abuurfgarayo oo uu saxeexo aqoonsigu labadaa dariiqoo buu ku iman karaa aqoonsi etoobiya oo keligeedii wax jira maaha wax jira oo sharciyan jira maaha maadaama waddamadii igad aanay oggolayn oo aanay isku raacin oo aan la haynin aqoonsi igada waa sheeka carruureed carruurta loogu sheekeeyo etoobiya ayna aqoonsanaysa maxay ku aqoonsan etoobiya haddii lagaga adkaado dagaalkaa diblomaasigaa aqoonsigeed waxa uu ku geynaya muxuu si taraya wax alaal xu taraya ma jirto dhinaca kale wuxuu sii fogeynayaa tallaabadan waxay sii fogeynaysaa aqoonsi ay somalilan hesho
وين دلوي الحالة الصومالية يا قوسيد أدو دلوا وحنا الحسوسينا يا مدحونا كينيا وحنا مقعاب السفير سالوه السعتان لابا سفير بو من هرقيسو سو مقعابي من حمر و مقعاب عن سيو دويد بالين تسيا أقوسك الصومالية لو دوا صومالي ورقم يقرطو واحد تري ياد قوسة الصومالية حاجات دالك يجي لابا سفير وسو كلا مقعاب ورقمته ما يسو سارت كيريو أي ليدهاي ما هو وقصل قصل مقالة لباب عاصمة ودنها إلى أم الدولة أدرته حق بيلو تالو تسمعها واحد مشكلة ده لكن أمباستر مركز فول أمباستر وعاصمة ده وكان قد كيري وين نوجن ورقد دايري أي حمر قرتي أي أكو خصبتي كيني يلي كان قطو استاتس كي سفيركا أي كسو مقعودي waxay tixgelinaysa Kenya waa sharciyada lagu wada joogo adduunkan hadduu nin walba wuxuu doono samaynayo oo nin walba dhinacu doono u dhaqaaqayo dee waa la iscuni lahaa waa la iscuni lahaa bilku ku xoog roo yahay ayuu cuni lahaa laakiin dunidan waxay ku kala joogtaan lagu kala socdaa maraakiibta badaa maraysa ay ku socdaan diyaaradaha samada maraya ay ku socdaan sharciyo qawaaniin bay ku kala socotaa marka la soo duubay la soo dhaweeyay golaha ammaanka ee jimciyadda qurbaan ka dhaxaysa ayaa adduunka looga taliya golahaasina dalkan aynu joogno wuxuu u yaqaanaa Soomaaliya ayuu u yaqaanaa Abi Axmedna awood iyo wuxuu dhow toona uma laha inuu ku xadgudbo ama ka fargeliyo waa maqashalada dhacdaa waa kala socotaan cunaqabataynay soo rogaan waddanka iswaalwaalo waxay ka xidhaan afar cirka iyo dhulkii badda waa laga xidhaa waraaq yar ay soo saareen baa laga xidhaa lagu joojiya ciidamana uma soo diraan xoogna ulama yimaadaan laakiin warqad yar ay soo qoreen oo ay yidhahdaan cunaqabatayn baa lagu soo rogi ayaa daaqlaya albaabad baa laga xidhan joogiyo qufula waa golaha awooddaa la weeyey awooddaa sharcina maanta Soomaaliya haysta dagaalkiina uu bilaabmay xasan sheekhna tallaabooyin buu qaaday ilaa xataa hadday xoog isku daydo Itoobiya inay ku soo gasho oo xoog ku fuliso ayay Soomaaliya diyaar u tahay ilaa xataa xoog hadday isku daydo Soomaaliya Itoobiya isku daydo inay ku fuliso ayay Soomaaliya diyaar u tahay innaga maalintii aynu saxeexnay Soomaaliland haddaynu nahay heshiiska aynu saxeexnay ayaa wax doora oo aynu ka ciyaari karna halkaa inoogu dambeysay wax ictibaara ama sharciya ama wax ka soo qaada oo xukuumadda Soomaaliland ay leedahay ama wax tabaro ay leedahay ama cid dhegaysanayso adduunka wax ka qoraysa midina ma jirto Soomaaliya iyo Itoobiya isku keen dul qabsaday waana muuqataa cid adkaanaysa oo inay Soomaaliya ka adkaanayso nin walba sharciga wax ka yaqaan ama uu garanaya ilaa xad kaale hadday istiraaxitaa awood ku fuli sharciga ama heshiiska ku fuli hadday istiraaxi Itoobiya ayaa awooddii ka hortegaysay ay diyaar tahay saacadda aynu joogno ma jecli ilaahayna ka baryi maayo in la isku keen dul qabsado oo niman in laga xoog waaweyn ay isku keen dul qabsadaan waxaa ogaataan xataa inaynu farafaraynay dagaalkan ama loola kelimka lagaga jiro baabalmandab ee xuutiyiinta marka horeba halis baynugu jir hargeysa inay soo garaacaan xuutiyiintu marka horeba siyaasad xumadeenna inay xuutiyiintiina soo garaacaan ayaynu marka horeba qarka u saaray ima kala carqal dhibaato kale la yirgeliyey bal arrintani dad kale ictiraaf bay keenaysaa way fogeynaysaa siday u fogeynaysan aan idiin sheego arrintan urur goboleedka igad iyo african unionkuba ururka midooda afrikaba way ku qasban yihiin
inay ka soo saaraan qoraalo oy go-aano ka soo saaraan go-aanada ay soo saareen hadday noqdaan midnimada soomaaliya waa laba taabtaan waddamadii soo dhowaa ay doonayeen inay aqoonsadaan 100 mayl bay dib ugu dhacayaan 30 sannadoodoo dambe ayaynu dib u raajicinaynaa u meeraysanaynaa haddaan ilaahay soomaaliya faraj looga furin 30 sannadoodoo dambeaynu meeraysanaynaa wuu sii fogeeyey arrinkani tallaabadani way sii fogeysay 100 kilomitir oo kale sii fogeysay wixii qarka inoo saaraa soomaaliya bayna ogolayd oynu ka heli karayn soomaaliya oynu iska maslaxano ayaa ka dhoweyd oynu ka heli karayn aqoonsiga innagoon meelna ku meeraysan waa dad walaalaheena af soomaaliga yaqaana aynu isfahmi karayno walaal haddaynu neel garka qabano oynu ka heli karayn aqoonsiga aynu iska wada noolaano waxbay naga xumaan maayaan madaxweynahan quleelu isku dilayo qabaa'ilkii isku dilay walaalayaal laba madaxweyne ayaynu yeelanaynaa inagoo soomaaliya walaal ah oo laba wadana oo iskaashanaya wax intaasay ku silayd laakiin maanta dagaalkaas sharci iyo diblomaasiyadeed ee bilaabay wuu sii fogeynaya aqoonsigii etoobiya ayna aqoonsanaysana ka saar meesha waxaa laga gudbayaa ka soo qaad qoladale waa layna aqoonsanaya heshiiskii u shaqaynaya inay rumowdoba ka soo qaadba madaxweyne wuxuu sheegay marna 20 kilomitr marna dhowr 20 kilomitr dhowr kaba iskama reebo 20 kilomitr ba ka soo qaad halka etoobiya doonaysaa waa saylac kow maanta somalilan iyo jabuuti gaadiid baa u kala baxaa galab walba xaggaan way ka soo baxaan xaggan way ka baxaan dadku saas isugu socdaa horta etoobiya soo dhex gelaysa jabuuti iyo somalilan way kala go-ayaan 20 kilomitr baa kala jaraya waa qodob 20 kilomitr dadka degan maanta maalinta dekadu halkaa ka dhammaato ee waddada tareenka ku dhammaato ee jidku dhammaado dadkaa waa la barakicinayaa dad etoobiyaanana lagu beerayaa dhulkaa sababtu waa maxay waa qodobka security-ga badeecadaha dariiqaa maraya soomaaliya uma aaminsana etoobiya badda markay hesho dariiqana way ka fogeynaysaa dekadana way ka fogeynaysaa ciidamada maxay u samaystay ciidamada maariinska maxay u samaystay waayo dekadda hadday halkaa ka hesho soomaali baa dhinacyada ka xigta soomaalidana ay u samaystay ciidamada dekadeedani waa inay sayf noqotaa badeecaddeedani waa inay sayf noqotaa tusaale yar baan idin siinayaa dagaalka cafarta iyo ciisaha ee sid ka socda ujeeddadiisu waa maxay waxaa ka midaysnaa dagaalka ah mala sanaawi kii ka dambeeyey iyo aabi axmed saddexduba way ka midaysaa isku mowqifka ka taagnaay ciisaha in dhulkaa laga soo durkiyo waay ciidamo maqlaysa idaacada ciidamadii dowladda oo halkan jooga ayay maleeshiyaad cafari laynayeen dadka shacibka ciise meesha jooga oo ciidamadani aanay juuqa odhanayn waayo waxay fulinayaan maleeshiyaadkan cafartu siyaasad dowladda sare etoobiya ay leedahay bay fulinayaan sababta ciidamadu aanu dhex gelayna waa taa sababta haddii iyaga laga yar xoog roonaado ay soo gelayeenna ay uga joojinayeenna sababtuna waa ay taa waddadan la raba in laga baneeyo ciisa oo cafar loo soo raro cafarta waa la aaminsan yahay etoobiyanimadooda laakiin soomaalida lama aaminsana etoobiyanimadooda qoomiyadahan kale etoobiya ku midoobay ma aaminsana soomaalida sababtaasaa keenaysa 20 kilomitirna in la soo dejiyo dad etoobiyaana laga barakiciyo dadka degan ilaa khadka etoobiya tareenka iyo ay mari doonaan baabuurta waa secure baa laga dhigaya secure looga dhigaya waxaa la dejin doonaa dad etoobiyaana oo badan oromada oo khadka la adeegsanayo waxaa dad baa haysta oromadani abaagidhi halka yimi iyo inay wax sahlan lahaayeen
ودولة وين إثيوبيا حزب دheero siyaasadeedu qoto dheertahay ujeeddaa laga lahaa ujeeddadina waa taa la fuliyey muusena waa ogeydina xala waa daawanayseeno maalintoon abaagil qura inoo yimiye in 100 abaagidha la dhex fadhiisiyo baashii loo xidhayo xaaloo dhan isagii sidii bisad yaroo la qabtay uu saa u dhex fadhiyo uu yaabanaa oo keligii la geeyo meesha waxaan waa cilmi soconaya waa la barakicinaya reeraha ciise iyo gadabiirsi ee tiidaa degan waa la barakicinaya gebigood waa laga barakicinaya xataa kuwa dhinaca Itoobiya degan ee iska deganaa ayay saamayn doontaa oo laga barakicin doonaa dhulkan orobaa lagu soo fururaya iyo amxaare iyo qowmiyadaha kale Itoobiya Jabuuti oo wadda Soomaaliyeed oo in walaal lahay oo saa isku soconnay imika oo xilli ganacsigeenu soo maro oo dekadooda aynu isticmaalo oo inagu inoo yimaado oo inu wada joogno oo intaa isku mid nahay wey halkaa berri markay xintee dekedaa la sameeyo dekeda Jabuuti iyo dekeda Berbera way xidhmayaan waayo labada dekadoodba waxay u adeegaan waa Itoobiya waa bableeshka Itoobiya bableesha Somaliland uma adeegaan bableesha Jabuuti uma adeegaan labadu waa Itoobiya haddaba Itoobiyadii loo adeegay marka ayuu deked samaysato maxay dekedii qabanayaan waxaan ku misaalaya oo tusaale soo qaadanaya nin baa dukaan haystay alaab baad ka iibin jirtay badcad baad ka iibin jirtay intaad soo rartay iminka ma aragtin dukaamada dee la wari baabuurta lagu wareejiyaa inta dukaamada loo geegeeyo ninkii baa maalintii dambe ku yidhi waa anigoo xoogaa baa kuu dhiibayaaye halkanaad kasoo iibsataa alaabta maad itustid xoogaagana aad qaadatid waad isilowdo waad kaxayso stoorka weyn bakhaarka weyn baad geysay eed alaabta kasoo iibsanaysa bakhaarkii aniga maalintii dambe u tegey bakhaarkii alaabtii buu soo rartay adoo la gorogorno alaabtii labaad u timi alaabtii oo tale iga iibso adaan waan haystaa yaa kuu keenay oo sawdigii tusay adigu maalintaasaa kugu dambaysa shil aad ka macaashto oo dambe ilaa ninkii sirtaadii baad tustee ganacsiguna waa sir meesha wax kasoo iibsanaysa waa meeshiina arag iminka Itoobiya dekadaynu wax kaga iibinayn marka iyadii dekad yeelato dee labadii dekedoodii kaleba way xidhmayaan labadii dekedoodii kale way xidhmayaan heshiiskani inagoo qura waxina yeeli maayo macaa Jabuuti wax yeelaynaya macaa Jabuuti muuse loo tirinayey ee lahaa reer Jabuuti ayuu qoorta ka jaray gam maalintii dekadaas furato ayaa ugu dambaysay wax dib ay Jabuuti kala soo degtay Itoobiya dhaqaale ahaan marka intaa ay qaataan Itoobiya ay qaadato 20 kilomitir oo fidi doonaan 50 kilomitir bay iska gaari doonaan dhulka dadka laga barakicinaya xoog baa markaa la isticmaalaya uu dhaqan galay sharciyad meel laga daba taga ma laha meel awood kaga qaadi karto ma laha way kugu soconaysaa 50 kilomitir uu goosanaya markuu 50 goosto xaggana hartikaa tegey maxaa ku soo haray waxa weeye inta isaa qudigo Hargeysa iyo Burco ku soo hadhay Hargeysa iyo Burco ayaa ku soo hadhay dekadaadan imika dhaqaalaha Somaliland waa la wada dareensay yahay lama garanaynin maalintii dhulbaanta ay lahaayeen waanu xidhnay waddada maydan garanayn iska daa shicibkoo dawladdu may fahamsan may garan dhulbaanta waxay ka hadlayaan dhulbaanta cunaqabataynta golaha ammaanka uu soo rogoo kale ay lagu soo rogeen oo ila saareen ganacsigeena ka soo diga Berbera waddada mari jiray waxaan Berbera ka soo digaa laba waddo bay mari jireen waddadan Itoobiya iyo waddada Soomaaliya tagtay ilaa Garowe halkaa ka tagtay gobollada halkaa ka tagtay baa mushtarka xad halkaas la mari jiray waxooda ama Soomaalida hadaan ama Somaliland ha u dhashaan ama Soomaalida kale ha u dhashaan open baa hayso dariiq furan buu ahaa cashuur baa kasoo geli jirtay dowladda Somaliland dakhli baa laga heli jiray maalinta xidheen dariiqii xidhmay khaasatan Burco ilaa waxa laga dareemay albeerkooyin la seexanay
tukaamadii baa laga dareemay waddadaynuu saanay waxay tan etoobiya aynu wax ka iibinaa taana dekadda marka ay samaysato way xidhmaysaa iyaduna xaggaynu wax u dhoofinaynaa xaggaynu wax ka iibgeynaynaa isaaq baynu nahoo shaqadeennu waa baayac mushtari albaabada markaynu isku soo wada xidhno xaggaynu wax geynaynaa balaynu isweydiinay yaynu wax ka iibinaynaa ilaa dukaamadeena wax ka iibinay mid walba way naga soo tusnay halkaynu wax ka soo iibsanayne dhaqaale ahaanna waxay keeni doontaa in gaajo loogu baktiyo somalilan macaluul in loogu baktiyo ayaa iman doonta ilaahu dhowa maalinta etoobiya inta dekedaa samaysato macaluul loogu baktiyi doono ganacsatadiioo wada kacday aad arki doontaan iyadoo indhaa laysku haystaa arki doontaan oo la baktiyayo khatarta ku jirta meesha maydaan garan ee noloshiina ugu jirta midna waan idiin sheegayaa horta waxaa kala caddaatay dadka isaaqa sheegtaa inay barhkood oramo ahaayeen oo oramada ka soo jeedeen badnahay reer sheekh isxaaq ay sheekh isxaaq ahaayeen oo ka soo jeedaan waa dhiig ahaan baan ka hadlaya dhiig ahaan in dadkan isaaqa sheeganayay aanay sheekh isxaaq ka soo wada jeedin ayaa caddaatay imika ee barhkood oramo ahaa waxaad arkaysaa dhibaatooyinka aan ka sheekaynayo heshiiska inoo leh anuu muuse la yaabi maayo lamana yaabinayo ilaa saacadaynu joogno muuse wuxuu ku jiraa xaaladdii aaliyulxusuusiye aabi axmed uu u yeedhay sidanoo kale uu degdega ugu yeedhay ee iminka kaale soo dhoof iminka ee uu dhoofu tegey ee farmaajoo sii fadhiya loo geeyey ee uu ku yidhi aniyo farmaajo wada soconna hargeysa imanayna sii diyaari ee muuse marka erboorka soo degay ay lafti ku soo noqotay ee islaagaloon jawaradeenu hanoo keeni ninkaa doonimayo laga hayso wanadeenu niga da muuse waa xaaladii oo kale xaaladdan wax ku saxeexa anu lama yaabani markii lalaa waxbaa la saxeexayo meesha sawirkeeda saasaanu eegayo muuse waa naqaanaa muuse raalli kumuu ahayn laakiin lafihiisuu baqan waa kii hore u sheegee yidhi dunida libaxyo waxa ka baqaa xabashiga bal kii oo la dhex geeyey xalaqad xabashiya dhex galay waxaa u malaynaysaa kii oo xalaqadan dhex galay xalay oo ka sii daraydo qaar aanu uma tolanin waa maagadhayaal xal la dhex fadhiisiyo bisadiroo la qabtay waad moodaysa muuse sinaba ulama yaabeli anugu sinaba ulama yaabeli inaanu damiirkiisu waxaan ogolayn la way ii muuqataalaasa ka daalcanaya laakiinse waxaa la yaab leh dadkii isaaqa sheeganaya caddaata inay barhkood oramo yihiin oo qabaa'il kale iska sheeganayaan qabaa'il kale aanu sheekhani dhalin waayo dhiiggu isma bedelo dhiiggu wuu isu dabaqadaa suuqa hargeysa markaad marto waad dareemaysaa dadka su-aashaad weydiiso say uga jawaabi waad dareemaysaa dee nimankanna waxaynu qarriyaynu isku dhex noolaynoo waa dabiici inaynu isku milannaa maaha wax qariiba maaha oo lasii fogeysto marka waxaan leeyahay waraynu iskala garana bal hortaylow colowda yaallaynu nahaye wasalaamu calaykum raxmatullahi barakatu